salaamaya information baa anigu shalay dadka u soo gudbiyay adigana kulama hadin adiga kama keenin dadka waxaan rabaa inay ogaadaan waxa keenay inay runta inay been tahay niyo horta waxaan ma u baahnaba waxyaalahayga iyo aniga waxyaalaha laga qoray iyo waxa anigu qoraba ay wixii laga wareystay waxna waa wax feega oo been abuur waxna waa wax international oo caalamka laga yaqaano midda aniga iqusaysa niyo how jaraadiyo waaweyn oo international ah soo qaatay markaan wadanka soo galay ilaa iyo markiiba wareysiga noo socday marba qayb ay weydiinayeen sawirro ay qaadayeen haddana telefishinal la balansanaa international arrintaasna waxaan uga gol leeyahay aniga dadkan Soomaaliyeed oo la baadar gareynayo la been abuuranayo in aysan arrintan cagajuleyntu ku sii socon because aniga arrinta waxa weeye waxna waa wax iska mataqaana qaraxya islahay qofku inuu sheeganayo oo ummadiina cabsi sii gelinaysa waxna waa wax ka jiraan marka waxaan rabaa in laba dhinac u kala qaado dadkana wax u qeexo qodobka koowaad waxa weeye aniga marka la xiray waxaan la igu eedeynayay inaan wadanka sharci darro ku soo galay arrintiidu sidii u socotay marka la ogaaday inaan xiranahay waxa bilaabatay inuu dad adeegsanayay mataqaana muuqaaladaas inuu ilaa moogta waxa ka soo horjeeda nin dawladda u shaqeynaya oo ah lawyerka dawladda wuxuu raadinayaa wax kasta uu kugu celi karo wax kasta uu kugu dhibaatay karo goobaya marka waxa bilaabatay in markaas la raadiyo xogteeda si lagu gudbi lahaa dawladda la boosh gareeyo meel ay ka soo galaan waa oo Trump ku taageersana waa maalmihii ugu dambeeyay maxkamadeedu ay dhamaatay oo already deportation lagu xukumay oo kiiska iga guuleystay dawladda iga guuleysatay ayaa waxa daabacay qolooyin Trump taageersan si ayna ugu muujiyaan shacabkooda maadaama aniga deportation already aan ku xukumanahay wadanka aan sii joogin si ugu muujiyaan shacabka inay dad halisa wadanka ka tarxiileen waxay sameeyeen warbixintaas ay daabaceen markay ugu muujiyaan shacabka inay dad halisa wadanka ka tarxiileen waxay sameeyeen warbixintaas ay daabaceen markay daabaceen kadib waxa ila soo xiriiray qolooyin kaleeto oo federaalka ah yimid si fiican loo iimaad waxaan ku yiri lawyerkayga joogin ma in la hadlayo lawyerkayga markuu yimid lawyerkii soo warsadeen waxay dhaheen ninkan waxaan ka rabnaa anaga ninkan waxaan laga qoray waa aragnay baaritaan aan samaynay Francisca la xiriirnay Soomaaliya la xiriirnay waxaana ogaanay inay been tahay waxaan ka rabnaa ninkan information waxa isku qabateen waxaan u qoray dadka kale dhibaatada ku sameeyay intiina waa la wadaagay oo wallahi qaarkood fanaaniina ku jirta xogteeda si oo already shaqadooda wata si fiican inta kadib aniga de hawshiida iska sii watay waxay dawladdu Mareykanka sameynayso iyo waxay qoreed ma wax qaban karaan nin xiran ah moogta laakiin waxa qaban karaa hadda banaanka joogo aan wax walba clear garay karaa oo daba gali karaa wax kasta aniga marka hadda nimankii waa haystaa Mareykanka waa ku dhaganahay wax qoray ruuxiisa waa ku dhagan Mareykanka markaan ku dhagay Mareykankana waxa sii qabsado kale Francisci oo taagan annaga shacabkeena qalqal geliseen been baad sheegteen waxaana adinka qoray ninkaana waxaan inaa ku soo cadeeydiin la rabaa hadii kale magdhow aad bixidin waa la sii suran yahay Mareykankiina waxay dabada la gashay ninkaana annaga nasiiyo xogta halkaas ku soo hadalka bay shalaba dadka u sheegay shalaba ku soo dhamaaday asagu ku soo dhamaaday aniga xaritaankaygii iyo celitaankaygii ma aniga hadii dambi noocaas la igu eedeeyo ama dambi noocaas aan u xiranahay hawsheedu halkan ma dhaafilay mabluug sii daayeen mana lay sii daayeen laakiin hawshu inay been tahay waa is ogaan mid kaleeto cadeymaan wato wada sharci lahan ka imid oo wadanka aan ka imid wuxuu waxyaalaha wadan register gareysan waxa ku qoran Francisca warbixintooda marka lagu dacweynayo iyo wadanka ku nool isma walahaynba wadanka baad joogay isma walahayn cadeymihiina intiido iska cadaad wadan sharci leh oo register laan sharci ku lahayn ku noolaayo rasiidadii iyo meesha xagada jiray iyo meeshan ku noolaa iyo wixii oo documentigeygii aan haystaa taa markay clear garowday ninka odaga ayay ku soo biyo shubatawshu falaaru marka anigu ujeedada marka aan kale yahay warbixinada u bixinaya waxa weeye dadkan kale ee Soomaaliyeed oo ninkan ku baadar gareynayo ku cabsi gelinayo hebelan soo Mareykanka soo celiyay lagu cagajuleynayo inay waxaas waxba ka jirin inay jirto asagana dacwad aan ku furo anigu way hawshay fahmaysa waa arrin wanaagsan
dadku saxaafadana in dadka lagu been abuurto oo dadka lagu baadar gareeyo uma shaqeeyda qaab noocaas waana waxyaalo xasaasi oo la raadinayo qof asagu victim iyo dhibaato ka soo cararay wadankiisa ka soo tagay Europe iska dhiibay nolol ka raasanay inuu dad kale si dhibaateeyo ma aqbali karaan qolooyinkan korka muruxsan aad bay u danaynayaan marka barnaamijkaas marka waa xasaasi xogtiisa iyo baaritaankiisuna waa socdaa hadda maantana jireen telefonkaygu waa busy tuurka trend baa ka tahay adiga war xasaasi ah gudbiyay trend baa ka tahay arrintaas waxa weeye ninka adaga ah hawshiisa qayr Allah ka dhigo waxa ku soo haray wadaadkan ku saaran gurceel niyo horta ani hadalkayga waa cadeynaya meeshan hooyada was iyo dhilla ku dhashay iyo ma shaqeynayso ani qof inaad dulmiyana ma rabo si wanaagsan xaqiiqadan